madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump ayaa eedeeno culus dusha uga riday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaana WHO ku eedeeyay inay tahay mid uu Shiinuhu wato balse ma aha markii ugu horeysay uu weerar afka ku qaaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO madaxweyne Trump Mareykanka ayaa waxa uu bilaabay baaritaan bishii Febraayo xadida safarada Shiinaha iyo dalalka kale balse WHO talaabada ma aysan cambaareen hase yeeshee 10kii bishii Janaayo waxa uu hay'adaasi ay jeedisay talaabooyin ah in la xadido safarada isku socodka gaadiidka waxay hay'adda caafimaadka adduunka WHO dhaqaalaha ugu badan ay ka heshaa Mareykanka balse Shiinaha ayaa la jira Mareykanku waxa uu hay'adda WHO ku biiriyaa dhaqaale gaaraya 15% sanadkii balse UK iyo Jarmalka Bill Gates iyo xaaskiisa ayaa iyaguna sidoo kale ku biiriya hay'addaasi caafimaadka adduunka dhaqaale Mareykanku waxa uu ugu horeysay uu hakiyay maalgelinta uu siin jiray hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaana uu wadaa baaritaan ku aadan siday u maareysay faafitaanka caabuqa safmareyka ee coronavirus markii uu bilaabmo shirka hay'adda WHO madaxweynaha Shiinuhu waxa uu sheegay inuu Shiinuhu yahay mid furan oo cadaalad ah waxaana uu ku adkeysanayaa inuu baaritaan kasta la sameyn karo marka laga guuleysto faafitaanka caabuqa coronavirus ee dunida saameeyay dhanka kale madaxweyne Trump waxa uu u qoray warqad madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ugu hanjabay inuu Mareykanku si joogto ah uga noqon doono maalgelinta uu siin jiray hay'addaasi caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu qabtay muddo gaaraysa 30 cisho si ay baaritaan wax ku ool ah uga sameyso faafitaanka caabuqa coronavirus waa Xamsada Baarix telefishinka Star